hogaamiye wanaagsan maadaama bulsho kasta ay u baahan tahay hogaamiye isku duwan noloshooda iyo horumarkooda. dadka bani'aadamka ah waxa uu Ilaahay ku manaystay caqli ay uga duwan yihiin nimcooleyda, xoolaha iyo xayawaanada kale. sidaas darteed waxaa muhiim ah inay helaan hogaamiye kala hagi kara oo mid ka qaldan toosiya kan saxana dhiirigeliya. ujeedada aan qormadan u qoray waxaa ka mid ah inay ka faa'iidaystaan dadka akhrisan doona, walow aan rumaysanahay inay ku jiraan dadka akhrisan doona kuwo badan oo iga aqoon badan igana aragti dheer, haddana maskaxda dabeecadaheeda waxaa ka mid ah markii ay wax akhriso inay qiiro u kordhayso. waxaan ka codsanayaa akhristayaasha qormadan ama dhegaystaha ku xidhan buug maqal inay ii cudur daaraan hadday ku arkaan qoraalkayga qaladaad. waxaa suurtagal ah qalad ku noqon karo mid madbacadeed ama aniga oo qorista qormadan u adeegsaday aalada kombiyuutarka. si kasta oo ay ahaatoba Ilaahay keliya ayaa dhammaystiran oo maqaldame ah ee fadlan ii cudur daara. ugu dambayn waxaan guda galaynaa qaybaha qormadan, waxaana kaga faaloon doonaa hogaamiye wanaagsan iyo sidoo kale taariikhaha qaar ka mid ah hogaamiyaashii wanaagsanaa ee dunida soo maray iyo weliba tallaabooyin uu qaadi karo hogaamiye kasta si uu u noqdo hogaamiye wanaagsan bulshada uu maamulayana uu kasbado. waa maxay hogaamiye wanaagsan? hogaamiyaha wanaagsan waxa uu leeyahay tilmaamo aad u badan kuwaasoo ku wanaagsan hadba deegaanka uu maamulayo iyo dadka uu hoggaanka u yahay. tilmaamaha aan ka xusi karno waxaa ka mid ah inuu bulshada ka warqabo dhan kastaba, inuu kormeer joogto ah ku hayo xafiisyada iyo goobaha bulshada loogu adeego, inuu ka fogaado ku danaysiga hantida guud, inuu ka dheeraado wejigarad, qabyaalad, kooxaysi iyo eex nooc kastoy ahaato, inuu si gooni ah uga taxadaro ilaha dhaqaalaha dalka uu ka soo galo iyo sida loo maamulayo, inuu gacan birah ku maamulaa waxa sharcigu awood u siiyo asagoo shacabkiisa u tudhaya, isaguna uusan ku xadgudbin qaanuunka guud si dadweynaha iyo bulshada qaybaheeda kale ayaguna aysan ugu xadgudbin qaanuunka iyo sharciga. la taliye waxaa ka mid ah waxyaabaha muhiimka u ah hogaamiyaha inuu leeyahay la taliyayaal uu la shiro xilliga uu doonayo inuu go'aan gaadho iyo wakhtiyada la jaangooynayo qodobo masiirka iyo danta guud khuseeya. hogaamiye kasta oo doonaya inuu la taliye samaysto waxaa qasab ku ah in la taliyayaashiisa uu kala saaro hadba mawduuca ay kala talinayaan. tusaale ahaan, la taliyaha amniga waa inuu u dhiibaa khabiir amni, la taliyaha dhanka diinta waa inuu u dhiibaa xeel dheere diinta islaamka aad u yaqaan. la taliya in la samaysto waxaa ku xiga in lala tashado, balse haddii hogaamiyuhu noqdo mid aan cidna la tashan waa xaqiiq inuu fashilmayo, waxaana uu weynayaa tilmaanta ah hogaamiye wanaagsan. waxa uuna noqonayaa keligii taliye aan fahamsanayn awoodaha caqli ee Ilaahay ku manaystay dadka uu madaxda u yahay. ereyga la yidhaahdo keligiis taliye dad badan ayaa si qaldan u fahmay oo ku tilmaama hogaamiyaha ay ayagu necbaystaan, balse arrintu sidaas way ka duwan tahay oo waxa uu leeyahay micnooyin badan oo dadka qaarkood ay dafirsan yihiin. ereygan keligiis taliye waxaa lagu magacaabaa sida caadiga hogaamiyaha go'aanka adag kaasoo aan qofna wax war ah ka dhegaysan oo keligiis wax go'aansada kadibna dhaqangelintooda bulshada ku qasba, balse hogaamiyaha noocaas ah waa hogaamiye aan khibrad lahayn oo aan garan micnaha hogaaminta iyo ka faa'iidaysiga xikmadaha bulshada ka soo burqanaya. keligiis taliyaha rasmiga ah waa hogaamiye aan lahayn la taliye oo taladu asaga ka soo bilaabato asagana ay ku dhammaato. keligiis taliye marka si kale loo fiiriyo waa erey dhan qaldan loo adeegsado, balse qayb ahaan saxan. aan u fiirino laba dhinac. hal dhanka Ilaahay xagiisa markii la yidhaahdo Ilaahay subxaanahu wa tacaala keligiis ayuu taliyaa, cidna wax lama maamusho, asaga keliya ayaana koonka adduunyada dhan u taliya. labo dhanka aadamiga hogaamiyaha waa in uu keligiis taliyaa oo xukunka looga dambeeyaa, maxaa yeelay waxaa loo doortay in uu leeyahay xirfad, aqoon iyo karti ummadda uu ku hogaamiyo, balse la taliyaashiisu waxa ay talo ku biiriyaan maamulkiisa balse malahan ayagu awood ay wax ugu taliyaan. sidaas ayuu keligiis taliye marmarka qaarkood sax ku noqdaa.